halkaana maxaa waaye waa midka marketingka ah wixii aad ku xayisan lahayd kombanigeena wuxuu aaminsan yahay ama wuxuu aqoonsan yahay ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay kharash oo kuu ogolaanayo in aad isaga bixisid hoteelkaagii miitinkaagii wixii aad ku sharxanaysay alaabtaadii wax walba ganacsi kasta ayaa u baahan hadda annaga ayaanta dhaweyd markaa Toronto aadnay surveyaasha aan isticmaalaynay waawa kuwaanaaba dadka aan ka soo aruuriyay surveyaashan waxaa barintigareynay 400 waxay nagu kacday midkiiba boqolkiiba maxay naga qaadeen boqolkiiba waxaan u malayn inay ahayd $15 printingka okay so $15 afar ku dhufo okay waxa waaye 45 plus 15 55 Soomaa $60 wakaa $60 nagu kacday so waxaanoo kale convention poolka qaabilsan yes inuusan shilinkaaga bixin okay markaad iibsanaysid buugaagta wax ku xayeysiisanaysid oo kale waa dalbanay adaa dalbanaayo hadhowta company-ga rasiidka u diraysaa waxaa leedahay alaabtaana dalbaday order numberka u diraysaa lacagta marketingka taalay uu soo qaaday wuxuu kugu soo shubayaa e-walletkaaga okay sidoo kale lacagta marketingka ogaada waxaa loogu talagalay tiimkaaga inaad ku caawisid okay tiimkaaga soo markuu tiimkaaga kulamo qabanayo ama shaqo qabanayo buugaagta oo kale ama boorka weyn oo kale gadaasheeda yaallo oo kale ayaa loogu diraa okay so marketing bonuskaana aad iyo aad u fiican yahay dad badan kharash badan ayaa ka baxa jeebkaaga ka baxaya waa lacagtii aad samaysay oo meel lagu dhigay so again tan wuxuu xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo marketingka maasha Allah tabaaraka Allah okay halkaa marka waxaynu ka hadlaynaa balaankeenna ama compensation balaanka sida dhaqaalaha loo sameeyo sidee buu horta u shaqeeyaa waa kan tusaalaha ugu jeclahay maasha Allah sidee ayuu u shaqeeyaa ka soo qaad maanta asbuucaana soo gashay hambalyo congratulations welcome home walaashan Maryam hadda martii nagu jirtaa Maryam maanta asbuucaana soo gashay ka soo qaad okay so fiiri marka say u fududahay ganacsigan oo aan loo kala jecleen yaa hore u joogay yaa cusub yaa xirfadla loo kala jecleen bal fiiri wax yar isugu biyaan cadayaan okay iskaraale haadar raxiyada ay qabatay okay so waa kana bay Maryam way soo gashay maasha Allah waa lifestyle advisor boqolii kontonkeeda la bixaysaa dabcan maxay samaysay marka Maryam ka soo qaad waxay keentay 2 qof okay so tusaalaha wuxuu isticmaalay nin la dhaho Bob iyo gabar la dhaho Mary labadan qof ayay bay Maryam keentay haye fiiri marka siduu u shaqeynaayo teeri maanta waxaynu ka soo hadlayno oo ah labada gacmood iyo CV-ga qof kasta Bob waxaa ka soo aruuray 500 CV ah waa lifestyle advisor 725 ayuu ku soo galay Maryna maxaa ka soo aruuray 500 CV ah soo bidix maxaa yaala 500 midigtana maxaa yaala 500 haye commissionkii marka hadaaya aynu ka hadlaynay levelka ugu horeey maxaa waaye labadaada dhinac inay ka imaadaan 900 ugu yaraan soo qofkan 900 ma ka imaadeen ugu yaraan yes 500 iyo 500 kun baa ka imaatay intii ka badan ayaa ka imaatay shuruudda ugu horeysa waa taas shuruudda labaad maxaa waaye labada dhinac inay ka imaadaan ugu yaraan dhinac saddexdii noocba hal dhinacna saddexdii qayb laba soo maaha ama half so kan waxaa la isticmaalaa half dabcan so 450 ayaa inta laga soo qaaday intana 450 ayaa laga soo qaaday 900 waa kaasa CV-ga laga rabay so halkaa maxaa ka soo baxay $45 level 1ki ayay abay Maryam ku dhufatay taasi waa commissionkii maxaa u dheer marka Maryam commissionkii
qof kasta ee keentay maxay ka samaysay $250 oo ah dilaalkii halkaa maxaa uga soo baxay $500 oo cad haye fiiri marka asbuuci ugu horreysay maryan maxay samaysay 500 oo ah dilaalkii 45 oo ah commissionkii $545 ayay la hoyatay hadda waa asbuuceeda ugu horreysay waay dhexday ganacsigu xiratay maxaa kale qof kasta oo lifestyle advisor ah aad keentid maxaad helaysaa 15,000 oo ah Opulence points waa $150 oo ah fashion free haye 15,000 ku dar halkaa maxaa uga soo baxay maryan 30,000 oo Opulence points waa $300 oo ah free fashion oo kiyaalihii ciidda ku xaragoonaya alaabta ciidda ku xaragoonaya maanta alaab dharka ciiddan qabaa maasha Allah ay ku soo qaadanayso haye asbuuci ugu horreeya kaliya bal fiiri $545 oo ah cash cad iyo 30,000 oo Opulence points haye dabcan qofka markuu dhadhamiyo muxuu leeyahay wuu soo shaqaysanayaa haye asbuuci labaad waa kan bal fiiri waxa dhici kara asbuuci labaad maasha Allah tabaarakallah haye labadii qof maryan ee keentay wuxuu noqday Bob iyo Mary dabcan Mary iyo Bob maxay sameynayaan waxay samaysay maryan qof kasta muxuu keenayaa labadiisa qof haye Bob wuu ordayuu keenay wuxuu keenay Jane iyo Tim Mary way orday maxay keentay Ken iyo John adigii marka maadan fariisan tiimka kaliya ha shaqeeya maadan dhihin maryan way orodaya keentay Amy ee dhagta ku soo dhagtay haye intaasoo waxaa dhacay isbedel maxaa marka ganacsigii maryan ku dhacay haye bal fiiri waxa halkan ka dhacay marka Amy waxaa keentay maryan baynu dhahnay maxaa maryan ka samaysay 250 oo ah lacagta dilaalka ahaa haye laakiin tiimkeedana wuu shaqeeyay Bob iyo Mary way shaqeeyeen haye halkaa waxaa lagu tusinayaa marka CV-gii sidee buu u soo aruuray maxaase laga sameeyey haddaayo waxaynu haysanay labada dhinac 500 iyo 500 waxaan staan dhinac walba waxaan ka soo qaadnay 450 soo maxaa haray 50 dhinac walba 50 haray maxaa kale laba qof la keenay Jane 500 ka soo aruurtay Tim maxaa ka soo aruuray 500 oo CV halkani kadalik kontonkii hore u yaalay maxaa kale 500 ka soo aruuray Ken iyo 500 ka soo aruuray John iyo dabcan adigii maryan 500 ayadana qofkii ay keentay kale Amy haye CV-yaasha soo aruura waa lagu xisaabiyay bidixda waxaa taalo 1,050 midigtana maxaa taalo 1,550 muxuu marka systemka fiirinayaa levelka ugu fiican oo ku samayn karto commissionkaas aad ku samayn karto asbuucaas commissionka so levelka ugu fiican faa'iidada ugu badan uu samayn karo muxuu noqday levelkii labaad muxuu leeyahay qofka ugu yaraan labadiisa dhinac markii la isku daro inay ka imaato 1,800 ugu yaraan okay 1,800 boqol ugu yaraan dhinac weynay ka imaataa saddexdii noocba hal dhinacna saddexdii nooc labo ama 50-50 ama vice versa markii la kala bedelo so maxaa la sameeyay dhinaca bidixda waxaa laga soo qaaday 600 dhinacna midigtana maxaa laga soo qaaday 1,200 haye halkaas waxaa ka soo baxay $100 oo ah cash CV waa levelkii labaad level koowaad remember 45 kan labaad 100 u ahaa 100 halkaas ka soo aruurtay bal fiiri halkaa waxaa ku jeclahay CV ka soo hartay because 600 kaliya laga isticmaalay 450 intana 350 meel lagu dhigayo lagama daadinayo meesha koobaniyaasha kale waa la qubaa yes waa la qubaa kama lagama daadinayo meel lagu dhigaya so halkaa maxaa ka soo aruurtay lacagtii tiimka $100 so asbuucaas maryan maxay samaysay 250 dilaalka qofkii ay keentay iyo tiimkeeda shaqadiisa oo ah $100 halkaa maxaa uga soo aruuray $350 oo cash ah
maxaa kale maadaama labadii qof ee Maryan keentay Bob iyo Mary midkiiba uu laba keenay maxay noqotay lifestyle director 1 yes lifestyle advisor way kasoo gudubtay lifestyle director warka lagu sheegay saas uu fudud yahay laba qof aa keenay labada qof midkiiba labuu keenaya hambaliyo waxa taa lifestyle director 1 qofka markuu yahay lifestyle director 1 marka waxa la siiyaa points oo ah 25,000 waa $250 oo ah fashion maxaa kale 15,000 qofkii ay keentay Maryan oo ahaa Amy oo qof kastoo lifestyle advisor 15,000 waxa ka sameeyay oo plus points halka waxa uga soo baxay 40,000 oo plus points ama $400 oo ah free cash ma sha Allah maxaa kale u dheer faster bonus yes taasi lagu soo daray waxay ku xiran tahay faa'iidada iyo waxa soo aruura faster bonus maadaama ay ku keentay actually faster bonus I think wuu xisaabiye yes wuu xisaabiye I knew it faster bonus ka waxa waaye waxay ku keentay lifestyle director 1 ama adiga aad ku keentay lifestyle director 1 asbuuci labaad sidoo u sameysay compensation plan-keena maxaa waaye qofka markuu ku gaaro lifestyle director 1 7 cisho faa'iidada commissionka soo aruurtay wuxuu helayaa 3 jibaar qofka laakiin markii uu ku keeno 3 cisho gudahood asbuuc ka badan bil ku eg wuxuu helayaa 2 jibaar faa'iidada soo aruurtay soo faa'iidada soo aruurtay waxay ahayd 100 halkaan ahayd waxa ka wada 100 halkaan ahayd iyo 100 halkaan iyo maxay ahayd 45 halkaas ahayd right so waa kan tusaalihii marka team commissionkii sidoo qofka bonuska loo xisaabiyaa lagu tusinayaa $45 iyo $100 uu qofka keenay haye laba jibaar la siinayaa $290 oo extra ah ayaa lagu darayaa waay degdeg ayuu qofka u shaqeeyay ma sha Allah tabarakallah ka soo qaad waxa keentay MGRS maxaa helaysaa 2 share bishaas wow waxa lagugu dar markaa ganacsiga u bixiisaan ahayd waa faa'iido aan kala go'aynin hal shaqo qabanaysa intaasoo jeer ayaa faa'iideysa subhanallah sidoo kale Bob iyo Mary oo ahayd dadkii aad keentay wixii adiga aad heshay asbuuci ugu horeeyay oo ahaa $45 iyo $500 oo ahayd dilaalkii labada qof aa keentay ayagana way sameeyeen asbuucaas halka maxaa ka dhacay waxa la yiraahdo duplication maxaa waaye teamkaaga markuu sameeyo waxa adiga sameysay CEO-geena hadda ka hor la weydiiyay wuxuu qof yiri sidee aniga maanta dhaqaalaha aan sameeyo aan u sameyn karaa double ka soo qaad bishii waxa sameysaa 500 200 2,000 10,000 waxa rabtaa inaad double sameysid isma u sadhibin wuxuu dhahay ma rabtaa sidii double ah u sameyn kartid dhaqaalaha yes dhaqaalaha teamkaaga soo galo double ka dhig teamkaagii la shaqee oo bar wixii adiga aad sameysay teamkaaga markuu 2 jibaar sameynayo adigana automatic 2 jibaar sameynaysa soo qofkan wixii uu sameeyay asbuuci ugu horeysay oo ahayd 2 qof inuu keeno yuu baray Bob iyo Mary wuxuu baray iyagana inay 2 qof keenaan soo hadda maxay sameeyeen wuxuu asaga sameeyay asbuuci hore imagine qof kasta oo teamkaaga ah markii waxa aad sameysay uu sameynayo subhanallah kulligiin hal mar ayaa wada koraysaa halkaan waxyaabo xasuusin ah ayaan la wadaagayaa markay noqoto annaga dhaqaalaha ama CV-ga soo aruuraayo haba yaraatee wax laga daadinayo male waad aragteen hadaaye markay konton noo soo hartay waana loo dhigay markay 350 noo soo hartay waana loo dhigay CV-yaashi hadaayeto waa kana carry over waa lagu dhigayaa asbuuca dambe ayaa lagu siinaa lagama daadinaayo meeshay kumbaniyaasha kale ay daadiyaan maxaa kale number 2 markay noqoto
volumeka soo aruuraayo haba yaraatee lagaama qubayo haddii aad la baxayso ugu yaraan 35 dhibka waxa waaye 35 markaad la baxaysid CV-ga lagu aruurinayo waxa waaye kaliya midka ka imaanayo dukaankaaga ugu horeeya remember 3 dukaan haysataa so 35 marnaba dadka kuma dhiirigelino why dukaanka ugu horeeya kaliya ayuu dhaqaale ka sameynay 2 iyo 3 waxna uma yaalaan okay haye maxaa kale midda saddexaad maxaa waaye marka ay noqoto okay marka ay noqoto commissionka binary-ga sida loo sameynayo technically haddii la fiiriyo 2 qof kaliya u baahan tahay mid bidix mid midig labadaas qof midkiiba 150 inuu bixinayo dabcan aniga markasta maxaan ku taliyaa 2 qof ha isku ekaysiinin sababta ay tahay qofkaas hadday wax ka khaldamaan ama wuxuun hadhowdi CV-ga saas kuugu buuxdo shaqadii kuugu buuxdo shilin kuma lihi so marnaba 2 qof la iskuma ekaysiiyo laakiin inta wuxuu ku xasuusinayaa annaga sidee yacni ganacsigeena symbol u yahay wax aad iyo aad iyo aad loo qof kasta u samayn kara ay tahay 2 qof kaliya u baahan tahay ganacsigoo dhan subxaan allah hadhowdina 150 haddaan la baxaysa ayaga la baxayaan faa'iidadii saas u soconaysa midda afaraad maxaa waaye in aad heli kartid faster bonus qofka markuu darajo degdeg u gaaro 30 cisho ugu horeysa afartaas waa waxyaabaha aynu ku dheernahay kumbaniyaal badan maasha allah tabaaraka allah waa xasuusin okay dad wax soo qoraa ujeedaa waa fiirin okay maasha allah adigaa mudan maryam macaanto halkaa marka waxaan lagu tusinayaa wixii maanta aan ka soo hadlaynay labadii gacmood iyo wada shaqayntii halkaa waxaa ku qoran the power of binary quwadda ay leedahay binaryga waxa waaye labadaada gacmood laakiin shalay wuxuu yidhi rico aniga waxaan ku bedeli lahaa the power of 150ga muhiimadda ay leedahay iyo faa'iidada ay leedahay 150ka ku bedeli lahaa yuu yidhi haye alright so inta waxa waaye 7 wax ay na xasuusinayaan again oo aan runtii markay noqoto conversationkeena dhaqaalaha sida looga sameeyo mudan in la highlight gareeyo ama la ifiyo markii ay noqoto volumeka faa'iidada soo aruuraysa inaysan lahayn kaab inaanan marnaba lagu dhehaynin astaahiley sorry iska raalli ahoo tiimkaaga way bateen volumekii way badatay waa lagaa joojinayaa heblaayo kadib ama hebel kadib qofkii imaado waxna kuma lihid marna laguma dhahayo midda labaad oo mudan in tooshka lagu ifiyo maxaa waaye volumekisa hadday aragnay CV-ga soo aruurta wixii asbuucan aadan dhaqaalo ka samayn laakiin kuu taalo waa lagu aruurinayaa asbuuca dambe ayaa lagugu darayaa meelna kaama aadayso markay noqoto faa'iidada mar labaad waa waxa la yidhaahda infinity waa wax haddii xataa adduunka ka tagtay intuu kumbanigan jiro iska soconaysa insha allah variablekaa shalayta ugu sheegay again aad iyo aad midaanay ugu dhowdahay okay ayadana waxa waaye inaysan jirin wax gooni ah oo ku xadidayo dhaqaalaha sida loo sameeyo yacni special wax lagaaga baahan yahay aysan jirin ay tahay mid loo siman yahay levelka adduunta ahoo 4 levelaa ka soo hadlay kulli waa loo siman yahay halkaana maxaa waaye inaysan jirin quota markaa gaartay halkaas iyo halkaas maanta waxaa tahay LD2 markaa gaartay LD2 waxaas LD3 no 4 level isku si ayaa loo marayaa equal payout for equal payout ranks halkaana mar labaad dadka LD1 LD2 3 4 presidential royal 4 level shuruudihiina lagu xiraayo CV-ga inuu noqdo labada dhinacsi u shaqaynayaan isku mid ayaa laga yahay ilaahumaa noqoto milyaneerka ugu sarreeya midda ugu muhiimsan maasha allah walaalihii soo mareen kumbaniyaal kale ayaa ka sheekeeya markasta sida abay ayaa dhayman oo kale bal qof suu u soo dadaalayay indhihii madoobaadeen xiiqay oo darajo gaaray bisha dambe haddii uusan shaqadii uu bisha hore soo qabtay uu meeshaa ku gaaray samaynan lahayo iska raalle ahoo dib ayaa lagu celinaya bal niyadjabka ka weyn iyo qalbi jabka ka weyn maxay tahay waa adigoo maanta jaamacad ka soo baxay shahaado soo qaata lagaa cishtay oo lagu dhahay hoos ka soo bilow grade 1
alxamdulilah haba yaraatee kumbanigeena ma laha darajo kasta aa gaartid meeshaada ayaa joogaysaa kor inaa ka aadimayan hoos laguma dhigaayo subxaan allah taasina waa wax walaalaha kombaniyaasha kala soo galeen markaa kala hadlaysa ganacsigeenna aada ugu bishaarayn kartid okay dib laguu celinaayo aysan jirin midkaan markastaan dhahaa sawir ka qaata sababta ay tahay su'aalo badan ayaa lagu weydiinaya har iyo jeer 150 why sababtay u tahay in aan wax ku darsado maxay tahay qaar waxay ku leeyihiin sababta u bixinaya maxay tahay waxay u arkaan kharash muhiimadana ma aha kharash waa investment maalgelin waxaad maal gashanaysaa ganacsigaaga bil walba in allaale inta ganacsata aan la soo sheekayso weydii bil kasta ganacsigaan maxaa kaa gala qofka ugu yar muxuu sheeganayaa $1,000 kiradii biyihii korontadii shaqaalihii delivery hadday sameeyaan gaariga gaasu kaaga baahaya adduunka lama maqal oo lama arag ganacsaan ku jiraa waxaa rabaa keligii inuu miro dhalo anna ma rabo inaan shilin ku darsado soomaali hore ugu maamaaday hadday maamahayaasheenna saan u naqaano aynu ku dhaqmi lahayn waxbay ahaan lahayn soomaali maxay tiraahdaa lacag baa lacag dhasha yes sidii marka ganacsigan uu sida beerti oo kale oo la waraabinayay uu kuugu bulaalo bil walba ugu yaraan waa inaad maal gashataa $150 Canadian oo markii loo bedelo lacagta Mareykanka ah 120 markii loo bedelo euroga ah ma aqaan 90 ama 80 ah wax saasa wadamo badan uu ka yaryahay lacagta Canadian uu ku yahay 150 lacagtaan markaa gashatay kombanigeena waxaa ku iibsanaysaa alaab waa alaabtii adiga iyo qoyskaaga aad isticmaalayseen waa alaabtii ahayd daawada cadayga shaambadii goojadii kareemadii xaragadii waxay doonto haye iska raali ahaada wax yar lacagtaas marka maxaa waaye waxay ku ogolaanaysaa marka wixii aad gashatay waa cunowsaa imise jeer ayaad dukaan tagtaa maxaa ka soo gadataa moos yaanyo baradho basal hebelow dukaankaas intaa u tagtay ma tiraahdaa maxaa $150 ii qaadatay caqliga ha shaqeeya ma dhahnaa ma qof intuu dukaan tegay alaab soo gatay oo ka hadlaaya maxaa lacagta lii qaada weligiin ma aragteen maya waay lacagtii maxaa ku soo helay alaab waa exchange waa la kala bedeshay halkan waa sidii oo kale 150 alaabaa lagugu siiyey hadalka marka meeshuu ka imaanayo ma garan karo haddii lagu dhihi lahaa 150 iska dhig oo waxna kuma soo noqonayo yes hadal wuu ka imaan lahaa 150 alaab ayaa lagugu siiyey waa dukaankii suuqii ama hilibkii aad tagtay oo soo gadatay oo kale that's it waa very simple alaab baa soo gadatay haye maxaa kuu dheer marka maxaa kuu dheer aysan haysan in allaale inta ganacsata ah oo innaga ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey 150kaas oo alaabtii aad ku gadatay oo already soo noqotay oo aad cuntay maxay kuu dhalaysaa waxa ugu muhiimsan aynu kulligeen isugu nimaanay aynu dhegta u taagayna har iyo habeen waxay kuu ogolaanaysaa wax allaale waxa faa'iido soo aruuray wax allaale waxa tiimkaaga shaqo kasta ay qabteen waxay iibsadeen dadkii ay soo geliyeen waxa laga iibsaday far kasta oo dhaqaaqday CVgii ama dhibcihii ama pointska soo aruuray inaad wax ku leedahay waa waxaagii wax lagugu dar markaa dhahayo waa hadal fog haye halkaa marka tusaala lagu siinayaa ka soo qaad tiimkaaga iyo macaamiishaadaba dadka online-ka wax ka iibsana markii la isku daro ka soo qaad waxay gaarayaan 14 qof
ka soo qaad qof kasta dukaankaaga wuxuu geliyey ama waxbuu iibsaday ama waa dad tiimkaaga ah $150 ayay ku adeegteen qof kasta waxaa ka soo aruuray 69 CV ama dhibco ama points haye 69 CV marka 14 markii lagu dhufto halkaa maxaa ka soo baxay 966 CV 966 maxay isku bedeshay $45 oo ah lacag cash ah waa level 1kii aan hadda ka soo hadalnay waxaa laga yaabaa isweydiinaysid tookada hormarka ka hadlaynay waa xasuustaa walaalkay Cabdicasiis oo weydiiyey qasam miyaa saa u gaartid 45kan inuu tiimka uu yaraan 14 yahay no walaashir astaahil u jawaabtay afar qof waa ay tiimkeeda astaahil waa horeyna gaartay 45tan kaliya waxaa lagu tusinayaa ka soo qaad shaqo kale ma la sameynin wax kale lama sameynin kaliya 150 unbaa dukaanka la geliyay waa meesha ugu yar ayaa laga soo qaadaya okay su'aalaha labaad maxaa waaye ka soo qaad tiimkaaga iyo macaamiishaada 27 qof waaye qof kasta 150 ugu yaraan ayuu ku adeegtay halkaa maxaa ka soo baxay 1863 CV ama dhibco ama points halkaa maxay ku dhashay $100 oo cad oo cash ah sidoo kale ka soo qaad tiimkaaga iyo macaamiishaada waxay gaarayaan 53 qof kasta ugu yaraan ganacsiga ama dukaanka website-ka wuxuu gashtay $150 halkaa maxaa ka soo baxay 3657 oo ah CV ama dhibco ama $220 oo cash oo cad ka soo qaad tiimkaaga ama macaamiishaada wuxuu gaarayaa 79 qof waliba 150 kaliya gashay dukaanka halkaa maxaa ka soo baxay 5451 oo ah CV ama $460 level 4 ayaa gaartay maasha Allah tabaarakallah oo cash sidoo kale ka soo qaad tiimkaaga iyo macaamiishaada waxay gaarayaan 183 qof kasta 150 ugu gashay ganacsigii halkaa maxaa kaaga soo baxay 12627 CV ama $1020 intiinay jeclaan lahayd bil walba in ay ganacsigan ka samayso ugu yaraan $1,000 dad badanoo waxaa jiro maanta gabadhii hadlaysa Kenyaanka waxay tiri qofka ugu mushaar fiican Kenya bishii waxaa soo gasho $300 waa qofka ugu ladan ganacsigeena waxay tiri Opelus muxuu hirgeliyay wixii bishii la sameynayay inay joogaan walaalo asbuuc ku sameeya 300 asbuuc sameeya meeshii bishii sameynayay soo ganacsigan waxay tahay fursadan 3 jibaar ayay nolosheena kor u qaaday Allahu akbar yes haye ka soo qaad marka tiimkaaga ama macaamiishaada waxay gaaraysaa 445 qof kasta wuxuu gashay ugu yaraan 150 halkaa maxaa ka soo baxay 30705 CV ama $2,520 oo cash ah xisaab male tiimkeena inta asbuucii 2500 samaysay yes itusoo itaabsi maanta waynu haynaa tusaalooyinka anaga waynu haynaa maanta haye ka soo qaad tiimkaagii macaamiishaada wuxuu gaarayaa 861 qof kasta dukaankiisa muxuu gashtay ugu yaraan 150 halkaa maxaa ka soo baxay 59 oo ah CV ama $560 ugu dambeyn ka soo qaad tiimkaaga iyo macaamiishaada waxay gaarayaan 1725 qof kasta muxuu gashay dukaankiisa ugu yaraan 150 halkaa maxaa ka soo baxay 119,025 oo CV ah ama $10,120 markaan arko numberkan farxad gooni ayuu igeliyaa taariikh gooni uu leeyahay sababta ay tahay markii aniga sanad iyo bar ka hor
hadda 2 sano actually sanadii baraan markasta dhahaa Julaydan hadduu ilaahay idmo 2 bila iga hartay markaan si toosa uga xorooway shaqadii dawladda waa markii aan gaaray bishii inaan sameeyo 10,000 dadka badankood ganacsigan maxay u soo galaan wax kale ma aha inay gaaraan xorriyad dhaqaale inay gaaraan xorriyad waqtigooda aan la qaybsamaynin hadda imkaan traininga soo galaaye 10 daqiiqo in ka tagay salaadayda soo tukanaayo xagee kaloo ku samayn kartaa shaqada maanta haddaan training bixinaayo waa inaa qof kale sii balansaa iga qabta maahine ma dhici karto salaadiyaa soo gasha waa iska kacayaa waqtiga la iibsanayo marka waxa ugu muhiimsan waa waqtiga hadda shalaytaan ka hadlaayo hooyaday macaan saad ogtihiin hadda asbuuc naga xanuunsaneed maanta hadda aad u soo fiican tahay maasha allah walaashay aniga marka hore la joognay 5 cisho markii abaayo ila joogtay email loo soo diray canaan ah wa illaa inaa soo gashaa shaqada haddii kale wixii dhaco hadhowta annaga hana qabsanin inay ku ordeen noqoto anigana qof ii soo duceynaya ma ahine qof maanta igu soo qeelinaya ma leh soo ogaada dhaqaale keliya ma aha waxaan wax laga sameeyo waxaad xorriyad u lahaalaysaa aad adiga dib u soo ceshanaysaa waqtigaaga adduunka waxa ugu muhiimsan waa waqtigaaga qofkaaga jiranaa kii kale aad ka warqabi kartid yes soo walaalo badan waa meesha ay higsanayaan insha allah billahi kariim bishii inaan gaarno 10,000 sidii aynu ka fariisano xalay cod waxa isku duubayna walaashay Juweeriya aan ka hadlaynay insha allah biidnillahi kariim xorriyad dhaqaale si ku gaar lahayd sidee waqtigeeda ayadan u haysato waay wax kasta dhici karo bari wax kasta ayaa dhici karo marka qof bil aadana hoos fadhidid haba yaraatee waqtigaaga ma lihi had iyo habeen waa lagu cagajugleynaya waxaan har iyo habeen aniga u taaganay wax kale ma aha kulligiin hal saad u gaartaan insha allah xorriyad dhaqaale inaynu qof bil aadan hoos fadhin waynu gaaraynaana halkaana ku fadhiyaa kun fayakun baynu leenahay insha allah billahi kariim kaliya waxa waaye inaad fahansan tihiin walaalihiina aad fahansiisaan ha ka daalinina muhiimadda ay leedahay inay kumbanigan maal gashtaan bil walba koo waxaa leedahay lacagtii aa gashatay alaabaa ku helaysaa cid kaama qaadan 2 faa'iidadaas soo aruurayso ama adiga jiif ama soo jeed socota waxaa kuu saaran faa'iido sidee igu saaran tahay waa kana waa waxay muhiim u tahay sawir inaad ka qaadataan aad haysataan waa kana soo shaqeeyo waa xasuustaa talaadada markaan kulan leenahay 2 abaayaa imaatay marti noo ahayd markii aan ka hadlaynay 3 milyan iyo 120,000 ayaa laga samayn karaa bishii sanadkii way yaabeen abaaysee ku dhici kartaa kanaa tusiye waxa iri waxa ugu yar dhaqdhaqaaqa ugu yar maxaa waaye 150 fiiriya iri 150 kaliya intuu mara dhalanayo wow indhihiyaa weynaaday yes soo ha ka daalinina inaa walaalihiin u faa'iidaysaan adinkana wa illaa wax kastoo dhaco kumbanigeena waxaa ku jiro haweeney la dhaho Noora tiimka inta hore u joogto way yaqaanaan marxalad waxaa jirta mar waxay tiri ayada iyo ninkeeda inay kala doortaan ahayd inay baasto iyo bariis soo iibsadaan ay ku qadeeyaan iyo in ay qadaan sidee 150 u bixiyeen inay qadaan ayay go'aansadeen waay waxay fahansan yihiin waxa ka lumigaayo yes adigi marka inaad fahansan tahay maxaa kale tusaalaha ugu dambeeyo wax badanna waad maqasheen walaasheen Maryan Aadan oo ah gabadhii Soomaaliyeed ugu horeysay ganacsigan soo gashay 2005 mise 2006 hal sano kumbanigeena jiray in allaale inta milyaneerka maanta aynu ku faano uu ka mid yahay René Liaw uu ka dambeeyay Maryan markay soo gashay qof aad iyo aad u karti badan waaye ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad u shaqaysay ciyaalkeeda jaamacadooda ka bixisay guri heer sare ee ka iibsatay caadaas marayso maalmaha ka mid ah 150 ayay joojisay sayna ii sheegtay waxaa kula taliyay qofka ayada keenay taasna waa in kaga digaaya haddaa maanta kumbanigan ka tanaasushaan fadlan dadka walaalaha ah ha uga cayaarin future-koodii waay hadhowta waa lagu haystaa ma ogtahay in lagu haysto qof maanta haddii aad siisid advice talo xun haddaad siisid beri waa lagu haystaa dembi waayo adiga haddaad joojisid aday shuqul ku tahay laakiin qofna ha kula talin haba yaraatee adiga taladiisay qaatay gabadhii
way joojisay muddo 5 sano miya wax saas ah ayay hawada ka maqneen maxaa dhacay marka maxaa dhacay intaas ay maqan tahay dad baa soo galaayo dad baa wax iibsanaayo dad baa wax laga iibsanaya shaqadii way socotaa kombanigii meelna uma socdo yes markaasoo dadka isdhaho kombanigan waxna kama socdaan asuu jiraa imaatay wuuna jiri doonaa insha allah 18 sano hadda galay annagoo taagan haye shaqadii way socotaa har iyo habeen kombanigu ka bacooyaa maxaa dhacay marka maadaama ay joojisay wax allaale wixii shaqadii socotaa u jeedaan shaqadii kulli ciidaa looga shubay yes hal seensi kama aysan arag haye jabkaas marka soo gaaray waxay ii sheegtay marmar qaarkood waxay tiri abaay habeenkii waan ku soo baraarugaa yacni qof ma arkin oo naxsan markuu qofka riyo xun ku riyoodoo kale waxa ugu weyn xanuunka ugu weyn waxa waaye tiri waxaan ku cayaaray futurekii ciyaalkeyga sababta ay tahay waxaas waa wixii u aruurayay ilmaheeda iyo ilmahooda waxa hadda ay guri ka gadatay ee jaamacadda uga bixisay waa wixii business center 1ka idin sheegay 2 iyo 3 wixii saas u buuxay malaayiintii waa wax laga daadiyay Renee oo ka dambeeyana muxuu sameeyay hal maalin muusan joojin waa waxa maanta hadba guri uu isugu bedelayo 3 milyan gurigiisa ugu horeysa wuxuu ahaa 1 milyan iyo bar soo nacay sida ma arkan dharka u bedelo kala guriga isugu bedelaa 3 milyan mid uu hadda dagan yahay hadda sanadkii la soo dhaafay 5 milyan habeen dhaweyd ayaan dhaweyd training aan bixinay tusaale u soo qaato wuxuu dhahay Ifraax gurigeyga afraadna already wuu ii shiishay yahay annagoo taagan gurigiisa dambe 10 milyan 20 milyan nagu dul iibsado waana ganacsiga ku jirno ha kaliya muxuu fahmay suu u shaqeeya ganacsigan yes haye marka digniin hanoona haato qof ku digay kuma dilay dhahan Soomaali annaga inta liidarayaasha oo fahansan waxani har iyo habeen weyn ka hadleena kii qaadanayo kii Ilaahay barako ugu ridaayo Ilaahay un baa yaqaano adiga maxaa lagaaga baahan yahay qof kasta aa keentid inaa 100% aa fahansiisid waxa halkan yaalo ma sha Allah wax su'aala aada ugu dheeraado midaas sababta ay tahay inaa fahantaan aan rabaa inaa 100% dhiigiina aa fahantaan waxani waa hanti la kala qaybsanayo meesha waa joogtaa dhinaca ka cun hantida maxaa ku diiday okay amiin astaahilay macaanta amiin okay ma sha Allah aniga xataa hargab yar igu jira okay halkaa marka maxaa laga hadlayaa wixii aan ka soo hadalnay oo dhan qorshihii sidee marka looga shaqaysiiyaa gabadhii Kenyaanka maxay tiri hadallada igu soo noqdo waxa waaye ganacsigan ma shaqeeyo network marketing ma shaqeeyo MLM ma shaqeeyo anna maxaan ku dhahay tiri waa runtaa ma shaqeeyo waay waa inaa adiga ka shaqaysiisaa soo halkaa wuxuu ku leeyahay sidee looga shaqaysiiyaa marka balaankaas iyo qorshahaas laga soo hadlay sidee looga shaqaysiiyaa waa kana marka waa kana wax kasta adduunka waxay leeyihiin process maanta waxaa rabtaa bariis inaad karisid kuwa waxaa u baahan tahay digsigaa ku karin lahayd saliidii cusbadii basashii xawaajigii bariiskii right wax kasta aynu sameyno processay leeyihiin ganacsigan waa kadaalik wax magic ah ama keliga iska shaqeynayo meesha ma jirto jid loo maraa jirto waa kanaa jidka loo maraaye koo waxaad u baahan tahay listigii aaway dadkii aan la hadlaysay halkaa ani hadda waxaa ii yaallo dadkii national woman show aan kala soo hadlay jimcihii ayaan bilaabay inta ka horreysa waa mashquulsanaa jimcihii ayaan bilaabay hadda already ilaa iyo 3 qof ayaa ii ballansan talaadadan inay ku soo galaan live zoomka ay ka soo qayb qaataan ha maxaa marka u baahan tahay kow list dadkii aan la hadli lahayd aawe ma kuu qoran yihiin ha ogaada haddii aadan haysan list dad kuu qoran haddaadan haysan hab yaraatay ganacsigan kama mara dhalinaysid ha ku riyo inaa ka mara dhalisid 2 qof iyo 5 qof iyo 10 qof la wacay looga mara dhalay ganacsigan
waa inay saas dadkii kugu qoran yihiin halkaan marka aniga waxaa iigu jiro 3 qof aan idiin sheegay hadda oo ii ballansan kulli maxaan geliyey green cardka sarboodana waa isku dhex qabtay maxaa u geliyey green cardka waxa waaye waa dadka ku shiishan diiradda ii saarayna asbuucan hadduu ilaahay idmo wa ilaa sidii aan uga mara dhalin lahaa maadaama ay soo galayaan so again listigana waa ku qoranaysaa warqadahaana hadhowta waa ku guurinaysaa okay maxaa kale inay kuu diyaarsan tahay wixii aad dadka ku dhahaysay waa qaba taleefonka maxaa ku dhahaysaa ma kuu diyaarsan tahay hadda ka hor ilaahay khayr ha siiyo walaashay Saare Xuseen maxay nala wadaagtay script afkeeda hooyo ee ku turjumtay intiina isticmaasho scriptgaas hoos ku soo qora haddaadan isticmaalin maanta bilow haddaadan haysan ii soo dirnay qofka liidarkaaga my 5kaaga soo dhig hal ii soo diro weligii qofna ha wecinina adigoo idiin diyaarsaneen waxaa dhahaysaan sababta ay tahay hadda maanta adaayid abay hodan maxay tiri maanta doorashadii Soomaaliya madaxa nagu furan yahay right haye waxa laga yaabaa qofka maanta ugu wacda ganacsi rabti inaa casunta talaadada kulanka dhacayo inuu kula galo doorashada Soomaaliya haddii laakiin aysan kuu diyaarsaneen wixii aad dhahaysay haddii kuu diyaarsan tahay aan dhahee kulama galayaan step by step qofkii salaamadeynaysa wax kuu tahay waa ogahay inaan mashquulsan tahay anigana waa mashquulsanahay waxaan kuu soo wacay waxaan kula jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo fursad aad iyo aad aniga aan jeclaaday oo inoo dhacaysa talaadada waqtigaas availability-ga ka waran isla markii toos hadda haweenkaa marka aniga wacay 2 daqiiqo la hadlo mid kasta 2 daqiiqo waa u mahad celiyo koow waa ku mahadsantahay inaa buudkeena imaatay 2 waxa ugu hambaliyay giftiga ay raayeen giftiga aad heshay ka waran ma isticmaashay 2 waxay ugu dhaheen wili maysa taawar ma idin la tahay waxa hadiyada la bixinaayo markaas ka hadalnaa waxa hadiyada lagu bixiyo dadka ma qiimeeyaan waxay ku leeyihiin meel ay wili saaran tahay haye isticmaal biraankaas wardooni haye midka saddexaad waxaan aad iyo aad kula jeclaystay qof waxaan arkay inaad tahay xirfad leh qof fircoon qof miskax furan in aan kugu casumo kulan ka dhacaya zoomka talaadada 7 pm ka waran waqtigaas yes waa imaanayna haye waa kaasa so haddaysan ii diyaarsaneen 2 daqiiqo badan ay qaadan lahayd ama ka yar aniga oonan kasal gaarin maxaa u wacay inaan kulanka qabsado so haddaysan kuu diyaarsaneen waxaa qofka u wacday way ku luminayaan maxaa kale appointment inaa qofka qabsatid yes muhiimadda qof kasta aan la xariirayna maxaa waaye ayaga hadhowda waxay sameeyaan shuqulkuguma jiro in aad wa ilaa soo gelisid kulamada dhacayo talaado arbaco jimce sabti 4 cisho ayaa afkeena hooyo ku sharxnaa inaad soo gelisid in aad kula arkaan kaale 1 saac waqtigaaga biga siin kartaa ma ii quuri kartaa dadka walaacada isku fiicantii waxa leedahay 1 saac ma ii quuri weyde ina ila aragtid kuma dhahay wax iga iibso kuma dhahay wax kala samee kaliya ila arag so appointment wana haysata asbuuci waa 7 cisho ka soo qaad maalin waxa u qaadatay family-gaaga iyo howlahaaga 6 cisho kale maalin kasta hadduusan qof ku ballansaneen ogow mar labaad iyo mar saddexaad haba yaraatee ganacsiga ka mandhalinaysid every day waa ina appointment haysataa ugu yaraan 1 qof uu ku ballansan yahay haye maxaa kale qofkii wuu soo galay wuxuu ku dhahay waa ku mahadsan tahay hadeertaan wax ma iibsan karo ama kuma soo biiri karo koo maxaa weydiinaysaa waxaa leedahay walaalay ama walaalow ma taqaan qof aan isleedahay ama wuxuu ka faa'iidi karaa alaabteena ama wuxuu jeclaan lahaa fursad online-ka ah soo ogaada qof kasta ugu yaraan 1 qof oo kale u yaqaanaa so referral weydiisanaysaa aniga xisaaba leh inta qof aan u soo bandhigay qofay igu xireen maanta tiimkeenna ah ama macaamiisheenna ah ha iloowinina qof kasta qof uu yaqaanaa referral maxaa kale qofkii kama haraysid hadda wuxuu ku yidhi diyaar ma aha maxaa samaynaysaa infinite follow up infinite maxay tahay waa haba yaraatee wax aadan ka daalaynin tusaalaha ugu fiican maxaa waaye habar Saare Siciid oo ah hooyada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed oo tiimkeena 2000 caageena ilaahay soo oga dhigay markii ay la kulantay Stephanie
haba yaraatee fursad iyo hool diyaar umaysan ahayn waxay dhahdaa balsaano mar kasta waxaan ku dhahay tiri my plate is full saxankayga already wuu buuxaa already dukaanay leedahay full time ay shaqaynaysaa ciyaalay quraan bartaa meel hebeloo work social worker ay ka tahay faamiligeedii gurigeeda way sugayaan mayaa ku dhahay tiri iga raalli aho way soo wacdaa hadda cabaar markay joogto hi Sahara iska waran how are you cabaar ismayn maqalin waxaan jeclaan lahaa inaan coffee wada cabno sidaan ganacsi kugu soo bandhigo no iska raalli aho sorry malaha 6 bilood ayaa la daba socdaa barsaaro maalintii dambe bixii samaysay Stephanie caqliga keenta waxay dhahday waxaan rabaa inaan kugu xiro dadka aniga iga dhaqaala sareeya dadka ganacsigan si fiican ooga badaliye milyaneerada inaan kugu xiro oo kugu qabto appointment okay miya markay saas igu dhahday barsaaro waxa xasuustay tiri hadda ka hor inay ila wadaagtay inay tahay single mother aniga waxay tiri single mother ahaan jiray waan ogahay howsha culus iyo shaqada ay ku jirto waxa inay tiri adiga oo ah gabar yara da'yar oo wax baratay oo single mother ah in aan ku dhageysan waayo nin heblow oo millionaire dhageysto lagama yaabo waayaha inay tiri ina kulansi ee kulmeen 45 daqiiqo ayaa loo sharxay isla markay kaarkeeda soo saartay masaaro tiraada waa kan in register xagga maysan doonin Soomaaliya ku jiro yaa wax sameeyay waxaan huuhaamiya may Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayay isku tala saartay haddana maanta waad aragteen meesha uu maraayo yes so Stephanie marka haddii markay maalin 2 jeer 3 jeer la hadasho ee dhihla iska daa qoftaan can you imagine maanta marka can you imagine inta qof halkaas ka dhalatay aniga ugu horeeyo xurriyada maanta ka hadlaayo oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isiyo wax yar isugan iskaraale hada maanta xurriyada ka hadlaayo ha bal fiiri waxa soo isbedel ah kaliya maxay ka imaatay Stephanie markas waa u duceeyaa aniga waa u duceeyaa sababta ay tahay wax wanaagsan ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu soo dhiibay ha so again dadkii inaad ka harin laakiin ma aha maalin kasta inaa wacdin cabaar markay joogto soo wacaysa asbuuc 2 asbuuc kadib qofka waa la iska salaamadayaa ma aha every day ilaa qofka ku balow gareeyo taas marqaarkood waa sameynaa iska jiro ku qornaysaa 10 cisho kadib qofkii la follow up garee waxa kala sameeyaa aniga waxyaabaha faraxsan waxa soo baxay hadda kulamadii ka dhacay Minnesota kale Edmonton Toronto oo kale qofka u diraa ha arko oh my god kabarigeena meeshu baraayo abay raxmadkii loo dabadagay gaarigeeda waa u diray yes waa teamkayga waxa saad markaa sameyn karaa waxa la isaga diraa waxyaabaha farxadda ah 2 asbuuc kadib camalna waa laga war doonaa qofkii haye midda ugu dambaysa waxa waaye the perfect launch ina samaysid duplication wixii aad soo samaysay 1 2 3 4 waxaan soo sameynay listigii wixii aan ku hadlaynay anagoo qoranay appointment ee dadka qabsanay iyo dadka inaynu weydiisano referral ama qof kale iyo inaynu ka war doono hadba afartaas soo samaysay in aad ku celcelisid yes ma idin la tahay wax kale in lagaaga baahneen afarta step ma kari kartaa adiga ayaga ku noqo maxaa kaloo sameynaysaa teamkaaga ayaa baraysa qof kasta oo teamkaaga markuu sameynayo maxaa hadhow dhacayo duplication waxa ay dhahaan inaa isdardashid yes waana fursadda kaliya adduunka oo ku ogolaanayso adiga inaa isdardashid inaa soo noqotid ha adigoo 10 adigoo 100 adigoo 200 is arkaysaa bari insha Allah billahi kariim so midda waxa waaye jidka loo maro network marketing ma shaqeeyo waxa beeninayso midani ma shaqeeyo haddii aadan adiga shaqeynin ba ugu jawaabaysaa jawaab fiican ay barta gabadha Kenyaanka maanta ma sha Allah wow halkan waa waxyaabo bonus ah oo lagu daray okay hadiyad oo lagu daray waayo aad uga helan muxuu ka hadlayaa markay noqoto successka ama guusha sidee looga salgaaraa
koo waxa waaye qof kasta oo naga mid ah muxuu u baahan yahay inuu soo saaro liidarayaal ama hogaamiyaashaas hadhowda maxay u ogolaanayaan okay maxay u ogolaanayaan qof prospectigayga isoo wacooyo waa inaan ku celiyaa insha allah qof hogaamiye ah markaa soo saartay adiga liidarayaasha ah waxay ku ogolaanaysaa wixii aan maanta hiigsanayno oo ahayd residual income oo ahaa dhaqaalihii dhaxalgalka ahaa okay so waxaa ku bidinaysaa tiimkaagii inaad tababartid wax allaale waxaad taqaanay aad bartid marka qaarkood waxaa maqlaa qof laba bil company ku jiray oo wax loo dalbaayo no iska daa inaad u dalbo dadka aniga aan keeno registrationka u tilmaamaa dhaha halkaa taaba ma mar dhif ah uu qofka computer ka halaysan yahay ama wax maahine biyo sacabadaada looga dhargaa Soomaali hore u tiri haddaa qofka wax kasta u sameysay ogow adiga gacmihii laguhi ka xiray ha ka xirin tiibkaaga tababar maalinta hal qof soo gelisid waxaad ku dadaalaysaa qofkaas adigoo kale soo u noqon lahaa wax allaale waxaad taqaanid isu yaqaano waa midda ku hirgelinaysa hadhowdi inaad samaysid dhaqaalihii dhaxalgalka ah keligaa ma samayn kartid remember ganacsigaa waxaa u nimaanay keliya ma aha inaynu walaalo kale la shaqeyno walaalihiisi oo la shaqeynaya haddaadan tababaraynin haye maxaa kale promote and share the products in aad baratid sida ganacsigaaga loo xayisiiyo ayaama dhaweed waxaa arkaya maaqaan haddaa aragteen ma arkinoo dadka reelska ay soo dhigaan Instagram iyo gabar hadlayso dadkana isticmaalayaan waxay leedahay you have to talk about your business to be in business wax saas ah waa inaad ka hadashaa ganacsigaaga sida ganacsigaaga loo dhiso so ha ka baqin mar qaarkood waxaa arkaysaa qof ganacsiga ku jiro asxaabtiisa iyo faamiligiisa qof kale alaab ka gadanaya hadhowta dhahayaan oo adnaba ku jirta waay qofka wuxuu ka baqay inuu ganacsigiisii promote gareeyo inuu soo bandhigo waa inuu qof kasta ku yaqaano uu yaqaanaa waxa aad haysid iyo waxa aad samaysid aysan su-aal ka taagnayn haye sidoo kale alaabtaadii in aad dadka la wadaagaysid wadaagaasna wuxuu ka bilaabanayaa adigana isticmaalaysid right adigana isticmaalaysid wayna kaa muuqataa haye yes halkaana waxa waaye dadkii liidarayaasha ah inaad soo saartid qofba qof intuu ka aftahansan yahay qofba qof intuu wax ka yaqaano inaad soo saartid adiga keliya aad isku ekaysiinin waa kanaa marka bataan macaamiishaada sababta tahriya habeen waxay siinsada ganacsigaagii marka ay bataan dadka adiga kugu soo biiraayo siiba marka ay bataan hogaamiyaashaada liidarayaashaada maxaa badanayo dhaqaalahaagi waa very simple macaamiil team iyo hogaamiyaal intaas unba u baahanta okay fiiri halkani dadka marka macaamiishaada ah okay macaamiishaada ah marka ay ku qancaan alaabti ay ku qancaan aad u sheegtid ma ogtaa ilaa 40% discount oo heli kartaa maxayna isku bedelayaan inay kugu soo biiraan soo ha ka baqinina qof macmiil aniga hadduu igu soo noqdo marka labaad isla markii hoosta u geliyaa ma ogtahay waxaa ku heli kartay 30% ilaa 40% waa u xisaabiyaa intaas ayaa ku heli kartay aniga intaasay igu fadhidaa dad waxaa jiro habiko inay macmiil ku noqdaan no problem kaliya laakiin u sheeg inay jirto inuu ku heli karo inta inka jaban maasha allah tabaaraka allah halkaana muxuu ka hadlayaa stages Soomaali waxaa lagu dhahayaa u maleynaa tillaabooyinka right hadba stage qofka markuu maraayo markay noqoto network marketingka ah ganacsigeena sida loo kobciyo sideedaba waxaa jiro 3 stage 3 tilaabo 3 maqaam haye midka ugu horeeya maxaa waaye waa stageka loo bixiyo foundation aas-aaski bilow baa tahay haye midkaan marka maxaa lagaa rabaa inaad samaysid kow inaad baratid ganacsigaagii learn as you earn baynu dhahnaa mar kasta
baro adiga oo dhaqaale sameynaya inaad baratid wax allaale waxa kulamo ah inaad soo gelaysid maxaa kaloo sameynaysaa massive planting maxaa waaye waxa la abuurayo abuur ayaa ku jirtaa haye maxaa kale waxaad aad iyo aad iyo aad u badinaysaa soo bandhiga alaabtaada iyo ganacsigaaga maxaa kale aad u badinaysaa alaabtii suuqgeynkiisii iyo dadkii aad soo gelinaysay so stagekan waa midka ugu shaqada badan wuxuu ku leeyahay sanad ilaa iyo 2 sano stagekaana ku jiraysaa sidaada so hadda tiimkeena markii la fiiriyo badankeen sanad ilaa 2 sano maynu gaarin hadda walaasha juweeriya hambalyaa leena ayaana u dabaaldegay sanad guuraheedii yes wuxuu ku leeyahay halka sano ilaa 2 sano ugu horeyso adiga horta waxa ku jirta aas marka aragto qof 3 bilood iyo 6 bilood ku jira dhahay ganacsiga wax kama sameynaa waa ka niyad jabay si gooriya ooga dhaxaan yaa ku saxiixay xagee lagugu bishaareeyay ama lagaaga ballan qaaday 3 bilood iyo 6 bilood inaa uga mara dhalisid ma aqaan buugay ka akhristeen ma aqaan anigana wax badan idiin sheegay 2 sano ugu horeysay aniga oo wax kasta sameynayo waxaanay sheegayaan waa sameynaya bil kasta dad baan keenaya FGRS aan keenaya dad baan tababaraya kulan kasta waan aadaya wax waliba alaabta waa suuq geeraya show kasta waan aadaya haddana waxaa la sheegayo aniga oo yaaban oo dhahayo wa ilaa waxbaad khaldaysaa saan siba aha marna isfadhiga ganacsiga ma shaqaynayo waxaa isdhahay waxbaa kaa dhiban waa aniga u tagay agaasimaheeda iyo ninka ugu sarreeya kubadigeena labadaba isku af igu dhaheen waa runtaa wax kasta waa sameynaysaa maxaa igula talinaysaan marka walaalayaalo maxaan hagaajiyaa ku socay igu dhaheen wax kale igumayso darin yes wax yar isuga again iskaraale hada abaar marka joogo xogaa sanka ay soo xirmaayaan moodaa haye soo ku socay igu dhaxeen soo 2 sano uu sheegay ninka shal markuu sheegay waxa ila alla run badanaa waa intii aniga ayaa baraa yes soo haddaa stagekan joogtid muxuu kugu bishaareynaayaa fadlan marnaba ha isdiibin haye waxaa soo haray stageka labaad maxaa waa stageka labaad ama tilaabada labaad ama dabaqada labaad waxa waa midka aad sameynaysid presentationyaal okay badanaa sameynaysaa sidii kii hore kale waa sameynaysaa midkan laakiin maxaa la shaqaynaysaa dadkii tiimkaaga ahaa maxaa u bixinaysaa ayaga tababar iyo coaching badan waxaa hadda aniga sameeyo okay tababar iyo coaching badan ayagii sidii aad u soo saari lahayd liidarayaashii tii hore waxay ahayd adiga iyo naftaada ka shaqaynaysay midaan naftaadii iyo tii tiimkaagiba soo midaana fiiri muxuu ku leeyahay 2 sano ilaa 3 sano ugu horeysa okay hawshaana ku jirtaa weli waxaad dhisoosaa waxaad adkeynaysaa foundationki aaskaagii haye midka saddexaad waa midka hadda aniga aan isleeyahay alleelehe fooda ayaa dartay haye midkan maxaa waaye midkan waxa waaye midka aad aad xoogga u saaraysid training iyo coaching badan tababar iyo coaching waxa waaye la taliye sababta ay tahay aaska waa soo dhistay liidarayaal oo maanta wixii sharxi kara trainingka bixin kara waa soo samaysay laakiin weli maxaa lagaaga baahan yahay support badan tababar badan
hadda ani waxyaabaha sameeya waxa waaye hal saac strategy session aan la sameeya intiina hadda dhegaysanaysa oo jecel inaan la sameeyo strategy session walaalihii aan la sameeyo dhan wax badan ay ka faa'iideen every day waxaan fiirinaynaa iska joogkaaga sidee wax loo kala maaraya sidee wax loo kala sameeya okay qofka markuu saasoo kala sameeyo jid cad ayaa la jeexaa jidkaas marka qof meel u caddahay meel ka madow oo kala noqonay xagga ooma leexan doonto insha Allah adoo ku socdaad arkaysaa walaalaha hadda ugu active garaysan waa walaalihii strategigaas aan la sameeyay okay so midana waa kana so halkaan marka maxaa dhacayo shaqadii badneed waxaa laga yaabaa markii hore ka soo qaad haddaa ahayd part time inaa gelinaysay asbuucii maalintii 2 saac ilaa 3 saac maalintii marka hadhowti full time noqotid oo kale oo stagekan aad joogtid oo kale maxaa gelinaysaa 10 saac 15 saac ana hadda waxaa jirta maalmo iska daa stage 1 iyo stage 2 aan markaan fiiriyo dhaho bismillah 12 saac aan geliyay trainingkii iyo dadkii lala hadlaayay iyo kii kale hadda maalmihii dhaweed markaan joogna national women show waagaa nugu baryaya habeenkaa nugu dhammaanaya haye taasi marka waxay ku ogolaanaysaa laakiin hadhowti ideyada waxa waaye markii aad 5 sano ganacsigaaga gelisid tiimkaaga gelisid kobcinta aad gelisid in aad gaartid heer in waqtiga aad gelinaysid uu ka yaraado labada stage oo hore right wax kasta aynu maanta sameeyno hadda waa aragteen waalidka soo ilmaha u korinaya hadhowta muxuu gaarayaa heer ciyaalkii cuntadooda karsanayaan iskuulkooda aadayaan gaarigood soo shaqadii ka yaraanayso waa sidii oo kale ugu yaraan 5 sano waxa lagu leeyahay geedkaaga beero miraha ku shubo hadhowta waxa gaaraysaa heer waqtigii aad gelinayso uu yaraanayo laakiin dhaqaalihii aad sameynaysid uu sii badanayo yes maanta meeshu Renee iyo Raza ay joogaan in aysan weli gelinayeen 10 saac iyo ay gelinayeen laakiin ay maantana sameynayaan dhaqaalihiina sii kobcayo waqtigii ay gelinayeen uu yaraanayo haye halkaa marka muxuu nugula dardaarmayaa aad iyo aad muhiim u ah markay wax kugu adkaadaan wayna kugu adkaan doonaan yes haddaad isleedahay sida u soo gashay fudeed ayay u soconayaan hadda ayaan kugu bishaareynayaa way kugu adkaan doontaa sheekada yes fadlan muxuu ku leeyahay marka wuxuuna leeyahay kan se oo qaadaan okay do not quit haba yaraatee marnaba ha isdiibin markii ay sheekada adkaato ogow uu ku leeyahay marka ogow kuwa aanan dhaqaaqin aanan hadba meel u leecan sida laanta geedka oo kale maxaa dhacayo waa guaranteed hadduu ilaahay idmo meesha ay hiigsanayeen inay gaari doonaan yes keliya maxaa lagaa rabaa ku adkayso ogowna ugu yaraan 3 ilaa 5 sano inay qaadanayso inaad si fiican uga mara dhalisid wuxuu halkan kusoo gabagabeeyey aynu wada shaqeyno sidii aynu ooga mara dhalino riyadeenna qof kasta maalintuu ganacsigan soo galaaye riyo ayuu lahaa markay noqoto waxa la dhaho financial freedom dhaqaalaha xorriyadda ah waxa waaye markii aad gaartay heer aad haba yaraatee wax walwala aadan ka qabin wixii aad quudanaysay ama aad sadaqadaysanaysay wuxuuna xasuusinayaa marka inaynu nahay sideedaba annaga haddaynu nahay Auckland Nation inaynu nahay one team hal team inaynu leenahay hal riyo riyadaasna maxaa waaye bilyanka markii la gaaro yaa guulaystay kulligeen insha Allah kulligeen kan ugu yar waxaa soo gaaraya farfariinkii waa halka Abayzaare Xuseen farfariinka xataa soo gaaraya waa kan ugu yar okay halkaa maxaa ku qoran marka Les Brown oo ah dadka dhiirigeliyaasha nimanka aniga aan dhagaysto ka mid ah wuxuu ku leeyahay
markii aad caawisid dadka kale in ay helaan riyadoodii ama ay u rumowdo adigana waad helaysaa taadi yes waa xaqiiqo soo maxaad ka shaqaynaysaa har iyo habeen in allaale inta walaalaha ama macaamiishaada ha noqdaan ama ha noqdaan walaalaha kamariya iskula jirtaan riyadooda inay rumeeyaan qof wuxuu usoo gala caafimaadkiisa qof wuxuu usoo gala dhaqaale qof wuxuu usoo galay waqti inuu ciyaalkiisa u helayo faamiligiisa waxay doonto in riyadooda u rumowdo adigana automatically taada way rumoweysaa insha allah billahi kariim okay so intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa kulankeenii maasha allah tabaaraka allah exactly 2 saac ayuu nagu qaatay waxaan rajeynayaa wax badan ka fahanteen insha allah marka uu soo baxo recordingka waxa la duubay insha allah horey ka dhagaysta hadduu ilaahay idmo okay